وأنا wanaagsan dhageystayaal Soomaaliya waxay u dabaaldegaysaa maalmihii xorriyadaha waxaana ay ku jirtaa isbuucii loogu magac daray isbuuca dabaaldega xorriyadaha Soomaaliya inay hanato xorriyadeeda ama ay noqoto wadan madax banaan waxay u soo martay dhibaatooyin fara badan waxayna kala kulantay dil dhac iyo waliba amar ku taaglayn iyo waliba kharbudaad aad u tiro badan waxa dhiisha guntiga iskaga dhigay oo istaagay inay soo hooyaan xorriyadan rag Soomaaliyeed oo xilligaasi ku hamiyay inay abuuraan Soomaaliya madax banaan oo awood badan 26 bishii Juun sanadkii 1960 waxa xorriyadoodii hantay oo istiqlaalkoodii la wareegay goboladii waqooyi ee Soomaaliya ee loo yaqaanay Somaliland British Protectorate waxaana habeennimadii 26 bishii Juun oogta xorriyada laga shiday beerta xorriyada ee magaalada Hargeysa waxayna u dabaaldegeen Soomaalidii gobolada waqooyi maalmihii farxadda iyo xorriyada watay ee loogu magac daray 26 Juun maalmihii xorriyada afarcana maalin kadib sanadkii 1960 bishii July waxa sidaas oo kale oogta xorriyada laga shiday mar kale magaalada Muqdisho iyadoo qaybtii koonfureed ee dalka Soomaaliya Talyaani uu xukumayay loo yaqaanay Somaliland Italian Protectorate ay la wareegeen ama ay hanteen xorriyadoodii Soomaaliyana ay sida ku noqotay koodii bishii July sanadkii 1960 jamhuuriyad madax banaan oo dhameystiran intaasi kadib waxa madaxweyne loo doortay Allah u naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliya yeelato Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde oo sanadkii 1960 ilaa sanadkii 1967 dalka xukumayay Soomaaliya waxay noqotay oo ay u jihaysatay dhinacii dimuqraadiyadda waxayna ka mid noqotay wadamadii ugu xoog weynaa uguna saameynta badnaa dhinaca dimuqraadiyadda ee qaaradda Afrika oo xilliyadaasi qaadanaysay kana xoroobaysay gumaystayaashii gumaysanayay qaaradda Afrika dhalinta yar leh waxa ka buuxa saad ka warqabtiin dib badan aynu soo maray yaa laga sheekayn karaya sugi tiro badan oo aan sugnay baa laga sheekayn karaya rajooyin badan oo wax badan aan waqtiga kan sugnay baa laga sheekayn karaya intaas oo dhan ayagoo wada jira waxay ku dhigan yihiin qaluubtayada ayadoo shay keliya ay yihiin maanta waxaynu nahay Soomaali baan nahay maanta waxay nahay xor talada iyada gacantana ay noogu jirtaa waqtiga kan aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor dawlad oo adinka gacantiina ku jirta aad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad yaad leedihiin waa gallad ilaahay waa inaynu adkaynaa oo aynu dhowrnaa adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badan ay nagala joogto maraka ka ahaado rabidayada aad aynu u doonayno aan u rabno inaynu jecel lahay shucuubka adduunka inaan wanaag xiriir wanaagsan inaynu la lahaano dagaallo ka tirabeela iyo waliba halgan aan loo kala hadhin kadib Soomaaliya waxay hanatay xorriyadeedii sida ayna hore u sheegnay sanadkii 1960 labadii gobol ee koonfur iyo waqooyi waxa ay isku noqdeen dawlad kaliya oo loo yaqaano jamhuuriyaddii Soomaaliya haddaba aynu dib u milicsano bal halgankani meesha ka soo bilaabmay laga soo bilaabo ilaa halgankii iyo dagaaladii uu la galay sanacadaalaha mujaahidkii Axmed Gurey ilaa halgankii dhaqdhaqaaqii daraawiishta ee gobolada waqooyi ilaa bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ka talinayay ilaa 1920 laga gaaro xilligaas oo ay soo ibabeeshay
intaasi kadib waxaa dalka u kacay oo hanaanka gobonnimadoonka sii ambaqaaday ururkii gobonnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ilaa 1960kii. Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay noqoto dawlad madax bannaan, waxaana ay noqotay dawladaha ugu xoogga waaweyn aaga bariga Afrika ama guud ahaanba Afrika. waxay noqotay dawlad la leh cilaaqaad adduunyada oo dhan. waxa ay sidoo kale samaysatay siyaasad u gaar ah nidaamyo ciidan oo aad u tiro badan. sanadkii 1967 dawladda Aadan Cabdulle Cismaan madaxweyne ugu horeeyay ee Soomaaliya ka bacdi waxaa talada la wareegay Allah u naxariistay madaxweynihii lagu dilay magaalada Laascaanood Cabdirashiid Cali Sharmaarke ilaa sanadkii 1969 halkaas oo ay ka dhacday ama ay ka unkantay dawladdii loo yaqaanay dawladdii militariga ee 21 bishii Oktoobar sanadkii 1969 talada la wareegtay. Allah u naxariistay madaxweynihii saddexaad oo talada xoog la wareega dalka Soomaaliya Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre waxa uu dalka xukumayay ilaa sanadkii 1991.